السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta ay bisha June tahay 12 wararka diblomaasiyadeed ku hayna dunida waxa kamid ah waa kuma ninka Soomaaliga ee loo doortay gudoomiyaha aqalka sare ee dawladda Itoobiya Abiy Ahmed oo kororsaday muddaxileedka madaxweynenimo dawladda Mareykanka oo dawladda Soomaaliya ku qasbaysa inay maamulada la shirto iyo luuqad adag oo farmaajo ay kula hadashay Kuuriyada Waqooyi oo digniin u dirtay dawladda Mareykanka halka warka aad kala socotaan waa bilkhayr TV aynu warkeena ku bilownay Soomaaliya dawladda Mareykanka ayaa war saxaafadeed cusub oo ay ka soo saartay xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya waxay dawladda federaalka ugu baaqday in ay si degdeg ah u abaabusho kulan ay la yeelanayso madaxda dawladda iyo maamul goboleedyada dalka dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ayaa saldhig u ah مبدأ وضع هذا الكأي وضع شقين الدولة فدرال كأيو الدولة حبناها كأ لكن قضب كأ ونمبر كيسو هاي كوبيو كنتون صدن أيادي إن مدحوينياش وغيران حال مرة أي كل مان سنة كيبا سيداس أيا وحلقود ورصحافة ذات كاسي دولة مريكان كأيا شاكتاي إن يسو دوين يسو قرالة دوان كصوب بحي قدوميها أقل كسرع عبد حاشي مدحوينها هيرشابيله محمد عبدي واري مدحوينها بوتلان سعيد عبد الله الدني يا مدحوينها جبلان أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي يا ساميليد سياسة صوماليا كوا صوت صدي كلن كالدولة فدرال كإيا الدولة قبل يدا حبناها كأ حرير دود إيو وذا هذا الكوافق سن دستور كدلك صوماليا أيا وحي وجهي فرصة تاريخي إيا عقبة قطر لبضبا waxaan ugu baaqaynaa hogaamiyayaasha dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada inay muujiyaan dhiiranaan hogaamiyenimo ayaga oo meel iska dhigaya khilaafiyada u dhaxeeya si ay isugu raacaan hanaanka doorasho oo cad loo dhan yahay waqtigiisana ku dhaca ayna u xaliyaan kala qaybsanaanta siyaasadeed ayna u midoobaan dagaalka al-shabaab ka dhanka ah si kadib u eegis loogu sameeyo oo ay saameyn ku yeelanayso qorshaha kala guurka Soomaaliya ay uga dhabeeyaan ballanqaadka deyn cafinta si wax ku ool ana uga jawaabaan safmareenka COVID-19 ka cudurka ba'an ee dunida aafiyay ayaa lagu yiri bayaanka dawladda Mareykanka ayaa intaas ku dartay inay ka go'an tahay taageero dalka Soomaaliya ayna sare u qaadi doonto ahdaafta ay ku midaysan yihiin iyo qorshayaasha mustaqbalka dawladda Soomaaliya ayada oo dib loo eegayo oo la soo cusboonaysiinayo ballanqaadka wada hadallada nabadeed waxaanan ku kalsoonahay in wada shaqaynta dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah xaqiijin doonaan nabadda iyo barwaaqada iyo horumarinta dhammaan muwaadiniinta dawladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay gabagabada qoraalkaasi imikana Itoobiya ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa waxa la sheegay inuu kororsaday muddaxileedkii iyadoo aan la ogeyn xilli aan la garanayn iyo xilliga la qabanayo doorashooyin maadaama lagu jiro cudurkii safmareenka ee COVID-19 ee dunida aafiyay taasoo macnaheedu ay tahay in aan la hubin xilliga iyo sida wax u dhici doonaan mustaqbalka dhow inkastoo la yiri 9 bilood kadib warbixintaasi lagu sheegay haddii uu xanuunku bixi waayo in aan la qabanayn doorasho معارضك ayaa waxay sheegayaan inuu Mr Abiy uu rabo inuu marorsado xukunka dalka ama ba madaxweynenimada dalkaasi isagoo aan raacin sharciyada wadanka ama aan haysan wax cadeyna oo muujinaysa in xukunka uu isu soo taago madaxweynenimo gudoomiyihii hore ee baarlamaanka ayaa iscasishay toddobaadkii la soo dhaafay wali waxaynu dhex mushaaxaynaa wararka xagga ay inooga imanaya dalka Itoobiya aqalka sare ee baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa markii ugu horeysay loo xushay afhayeen Soomaaliya kaasoo lagu tilmaamay inuu yahay nin aqoon-yahan oo ka soo shaqeeyay ama ka soo qabtay xilal dawladda dalkaasi Itoobiya kalfadhiga shanaad ee golaha federationka aqalka sare ee dalkaasi Itoobiya ayaa shalay tolay kalfadhi ay cod aqlabiyada xilka loogu doortay آدم فارح إبراهيم oo ka soo jeeda deegaanka Somalida aadan oo siyaasi caan ka dalkaasi Itoobiya ayaa xilal kala duwan ka soo qabtay deegaanka Somalida iyo ismaamulka diridhaba
hadda waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya isagoo hore u soo qabtay xilka maayarka ismaamulka Diridhaba iyo xilal wasiirnimo. Gudoomiyaha aqalka sare ee Itoobiya Aadan Faarax Ibraahim ayaa bedelay gudoomiyihii hore ee golaha Khayriya Ibraahim oo xilka maalmo ka hor iska casishay ama ka tagtay. Aadan Faarax ayaa ku dhashay deegaanka Soomaalida kuna soo barbaaray waxbarashadiisa heerka koowaad iyo heerka labaadna waxa uu ku soo qaatay gudaha dalka Itoobiya. Waxa si gaar ah loo xusuustaa ama loo xusay doorkii horumarineed uu ka soo qabtay ismaamulka magaalada Diridhaba intii uu maayarka ka ahaa. Gudoomiye ku-xigeenkii hore ee aqalka sare Maxamed Rashiid Xaaji ayaa si iskii ah uga degay xilka gudoomiyenimo maadaama aysan suuragal noqonaynin in gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenkuba ay hal deegaan ka soo wada jeedaan. Gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare waxa isla maantaba loo doortay Itsegenet Mengistu. Golaha kalfadhigiisa maanta waxa uu markii saddexaad cod aqlabiyada dib ugu dhigay tirakoobkii afraad ee dalka iyo guryaha oo dalka Itoobiya ka dhici lahaa. Dhanka kale gobol ka tirsan ismaamulka shucuubta koonfureed ee dalka codsigiisii ayay soo gudbiyeen ee ahaa inay dowladda deegaanka gaar u noqdaan wixii uu goluhu u saaray guddiyo soo daraasadeeya oo golaha warbixin horkeena. Doorashada gudoomiyaha cusub ee aqalka sare ee baarlamaanka Itoobiya ayaa qabanqaabada laga galay kadib markii ay isniintii xilkaasi iska casishay Khayriya Ibraahim oo tabasho muujisay. Khayriya oo ka hadlaysay sababta ay xilka isaga casisay ayaa tiri koox kale talis ah oo maalin walba dastuurka dalka ku xadgudbaysa inaan la sii shaqayn doonin. Diyaar umayhi anigoo lama shaqayn doono ayay tiri bayaankeeda ku tiri. Dowladda talada dalka Itoobiya hadda haysa waxay isku dayaysaa inay qodobada dastuurka isku qasto si ay u kororsato muddo xileedka ayay raacisay Khayriya. Imikana xagga iyo qaaradda Asia, Kuuriyada Waqooyi ayaa waxay sheegtay in Mareykanka looga baahan yahay in uusan ka hadlin arrimaha la xiriira labada Kuuriya. Wadahadaladii uu Mareykanku doonayay inuu doorashooyinka madaxweynenimo ay u dhacaan si habsami leh. Bayaan lagu baahiyay wakaaladda wararka rasmiga ah ee Kuuriyada Waqooyi ee loo soo gaabiyo KZNA ayaa lagu sheegay in Mareykanka ay afkooda qabsadaan oo aysan arrimaha labada Kuuriya aanay soo faragashan. Bayaankan ayaa sidoo kale lagu sheegay in Mareykanka ay xaliyaan dhibaatooyinka ka jira gudaha wadankaasi dalka Mareykanka. Kuuriyada Waqooyi ayaa horaantii toddobaadkan jartay xiriirkii kala dhaxeeyay Kuuriyada Koonfureed ee ay jaarkayeen kadib markii ay Seoul ku guuleysatay inay joojiso warqad iyo qalab kale oo ay u soo direen dad u goostay dhanka koonfurta. Hadalka ka soo yeeray Kuuriyada Waqooyi ayaa ku soo beegmay kadib markii xukuumadda Washington ay sheegtay inay ka xuntahay inay Pyongyang ay hakiso xiriirka ka dhaxeeyay dalka la jaarka. Xaajood ku saabsan soo afjaridda barnaamijka nukliyeerka Kuuriyada Waqooyi ayaa la isku mari waayay iyadoo ay jirto inay kulmeen madaxweyne Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ee la yiraahdo Kim Jong Un. halkaad nagala socotaan waa Bilkhayr TV.